Assalaamu calaykum. Walaal ku soo dhawaada Beat. Waa channelkeena rasmiga ah. Please haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa ay gaar u tahay ragga. Niman yahow shantan waxyaabood gabdhaha aad ku dhahdo weligaa kaa tegi maayaan. Waa wax nin kasta loogu baahan yahay inuu xaaskiisa uu kalgacayl iyo inay qiimo leedahay dareensiiyo. Marka ay haweeney dareento in la jecel yahay, si aad ah ayay ugu raaxaysataa guurka. Rag badan ayaa hilmaamay xushmada xaaskooda, taasina waxay burburinaysaa guurka. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee haweeney lagu dareensiiyo inay kugu weyn tahay, isla markaana aad jeceshahay. Number 2, waan ku qadariyaa. Ogaanshaha kaalinta haweeneyda ee guriga isla markaana aad ku qadarisid waa qaab wanaagsan oo aad ku dareensiin kartid kalgacayl. Xaqiiqda inaad ogaatid dadaalkeeda way ku farxaysaa. Haween badan ayaan ku faraxsanayn guurkooda sababtoo ah raggooda wax badan kalama socdaan waxyaabaha ay sameynayaan iyo dadaalka ay maalin walba u hayaan guurkooda. Number 2, waad qurux badan tahay. Waa farxadda haweeneyda inay ogaato inay saygeeda uu u arko mid soo jiidasho leh. Inaad u sheegtid quruxdeeda waxay dareensiinaysaa inay qurux badan tahay oo aad jeceshahay. Number 3, waad igu weyn tahay. Tani waxay tusinaysaa inay qiimo agtaada ku leedahay oo aadan qof kale siisanin. In xaaskaaga aad ku dhahdid ammaan noocan ah waxay guurkaaga ka dhigaysaa mid tiir adag u horay u socda. Number 4, waan ku jeclahay. Ma jiro wax wadnaha garaaca aan ahayn in ninka xaaskiisa uu ku dhaho waan ku jeclahay. Marka aad si kalgacayl leh ugu sheegto jacaylka aad u qabtid, waxay dareensiinaysaa inay tahay haweeneyda dunida ugu nasiibka badan. Haweenka badankood eray noocan ah kama maqlaan raggooda kadib sanado badan markay isqabaan. Number 5, aad ayaan kugu faraxsanahay. Ha ogaato sidaad ugu faraxsan tahay kaalinteeda hooyanimo iyo tan xaasnimo, maadaama ay tahay carruurtaada hooyadood. Tani ma dareensiinayso jacayl oo keliya, balse waxay siinaysaa kalsooni buuxda. Rag badan ayaa xaasaskooda u yiraahda ereyo dhaawacaya. Ninka dhabta ah waa kan xaaskiisa ku yiraahda ereyada quruxda badan. मुरझाए रिश्तों की पत्ती पानी डाल के खूब झिंझोड़ो। सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो। जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो। हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो। बीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहला